السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي أمدا إذا ميل كستا جوجتان I hope دمانتينا عافماد قبطان مع سنتين ميل كستا حلي كستا يسعد كستا يدين الله سبحانه وتعالى يدين حفتي welcome back سو دوادا وين نجي اسكسو نقولنا another video مع عافماد قبطان من مع سنتين إن شاء الله إلهي محمد ذكرتشين ميل كستا جوجتان إن الله يدين حفتي نمع لنا تكون دمان ولا الله كذا لنا قصو بيرو welcome كسو دوادا ميل يدين كتشعليه ولا الله يجهره welcome back جزاك الله خير ومالي ماي channel كإسلوسن وكجابية إنه تشرو لكن الحمد لله ما شاء الله الله يبارك ومهتنتين دمانتين ولا الله يداوده ولا الله يقصو بيره ولا الله يكتسر دمانتين جزاك الله خير الحمد لله وعاوية دقاله أكشل ما تقلب دوبة بدنا هبين فيديو دوبة إن شاء الله بإذن الله كريم فيديو كم حربة دور قبل هويو ينا أيا مسج برايفت يسوع دري iyagana waxaan rabaa maasajadooda intaan ka soo qaato waxyaabaha muhiimaadka ah inaan videogan kaga hadlo waxaa kaloo jirta gabadh walaashay ayaa la soo xiriiray waxay igu tiri gabadhan halkan ku jira waxay igu tiri walaalahay waxaan joogaa Afrika waxaan ahay hooyo 5 caruur haysata cunugii lixaadna hadda xaamilo ah odagaygu soo maqayo qurbuu soo jira maasha Allah waxaan deganahay guri hanti oo aan nagu leenahay waxay alxamdulillah nolosheenu aad u fiicantahay odagaygu lacagta uu soo diro حبيلشنا كسوحر واحد اللي عقتيد ذهب أيان قليا الحمد لله هالجوري أنا نقول أنه ندقنه أيان ولا أنه ندقنه وحكلو هنتيه مالين جوري قاس ندقنه أنا كفامل كان كين طول بيدقين غير أروح بدنه هاي استماها هاي شو حتى واحد بيل أو شوكتان أو درامج أم بحياة ما شفته لكن الحمد لله ولا مشقين كربتي جوري بس كان بيتري ما أوده inaan banaanka soo shaqeeyana iska badada waa Afrika business lama sameyn karo marka waxa tii lacagta kasto oo soo gasha dahab baan gashada waxaan haystaa dahab ilaa 300 gram ku dhow ma sha Allah la yabaarik marka waxa tii wax kale ma sameeyo shilinka soo gala dahab baan galiya laba bilood ka hor inay hooyaday xanuunsatay hooyaday markay meesha tuulada ay joogtay ka timi magaaladayda ay timi waxay odagayga waan ka xishooday inaan lacag weydiiyo dahabkeygii qayb kamida ayaan gaday dahabkii runtii aad ayaa la baqsay lacagtii aan ku gatay lacag ka yar baa laygaga gatay alxamdulillah laakiin bayt hooyo oo dhakhtar baan ku geeyay meel fiican ay iga soo baxday marka waxay inta badan lacag kaasha ma haysto waxaan si dhigtaa dahabka marka waxay walaalay maadaama aanan business sameyn karin lacagtayda dhanaan dahab geliyo ma sameeyaa marka ma sha Allah walaashay si fiican baan u wada hadalay alxamdulillah ilaahay dahabkeeda uu barkeeyo waa ka dahabkii mar walba qasaare ma hadii xataa lacag la baqsay meel oo jiray la baqsay alxamdulillah waa taa hooyada dhakhtar ku geysatay dahabkii wuxuu qabtay soo dahabku mar walba waa anfacad alxamdulillah ilaahay uu barkeeyo ma sha Allah walaashay waxaan ku yiri maadaama aad haysatid hadda dahab xaraga iyo dahab raasamaal labadiiba alxamdulillah marka lacag extra ay soo gasho hadda waxaad u baahan tahay dahab aad ka heshido xaraga aad heshid alxamdulillah gado laakiin hadda waxaad xoog ka saartaa baan ku yiri in aad u ruuxay nagu tishin lacag kaash ma haysto in aad lacag taw at least $1 meel bangiga ah oo kugu dhow aad dhigatid oo sida hooyo kale hadda maadaama wax ka sadhici karaan hooyo xanuunsan karta aabba xanuunsan kara walaalba xanuunsan kara cunuga ayaa xanuunsan kara intii aad dahabka ka dilahayd waxaan ku waaniyay walaashay in ay lacag kaasha bangiga dhigato $1 noqotay $500 noqotay adigu lacag alxamdulillah aad marka ugu horeysa hadii wax ku dhacan at least ku soo badbaadi kartid lacagta wixii ka dambeeyay waxaan ku marka lacag emergency dhigatid si aadan dahabkaaga u gadan inta wixii ka dambeysay waxaad xoog saartaa ma sha Allah maadaama ilaahay odagaaga ku barakeeyo ilaahay irsaaqadaada ku barakeeyo waxaad samaysaa lacagta extra oo ku soo gala dhulku gado walaalayaal dhulku meelaha ugu lacagtu ka soo baxdo weeyaan wadankeennina waliba hada aad iyo Kenya meel kasta dhulkii aad even halka kan dhulkii aad buu qaali garoobay haddaad lacagta dhulku gadatid meel fiican ku yaala sanad kadib lacagta waxa laga yaabaa inay double ku noqoto marka walaashay waxaan ku yiri dhul meel fiican maadaama aad wadankeena joogtid dhul fiican ku gado dhulkaas hadhowta haddaad ka soo qaado kale dhulka gadatid oo hal dukaan xataa ka dhistid laba dukaan ka dhistid oo kiraysid lacagta dukaanka kaaga soo baxda hadhowta waxay ku noqonaysaa faa'iido weyn waxa laga yaabaa inaad mid kale sii dhistid marka insha Allah bismillah karin taas waxa weeyaan dhulka yeynaan ilaawin inagoo dadkeena qurbaha joogna xogaa dhibaato way because wadankii ma joogno wax kala socdo ma ogin laakiin gabdhaha dhulkii joogo hadii aad emergency meel dhigatid la si walaashay kale dhulkado dhulka markaad gadatid hadii aad awoodid xataa dhis xoog saar because lacagta halka kaaga soo dhacdo waa in kama waa lacag aan ka kala go'ayn waa lacag bil walba kira ka qaadanaysid meel la degan yahay dukaan haday noqoto guri haday noqoto waa lacag soo galaysa marka insha Allah bismillah karin taas waa meel lacag ka soo galaysa ama dukaan ha noqoto ama guri intaad dhistid aad kiraysid dad badan baa jooga hadda qurba jooga oo wadanka intay guriga ka dhisteen
kiro loogaga jiro, Kenya guriga ka gatay kirooyin loogu jiro. Marka haddaad saa samayn kartid alxamdulillah. taasi waa ta maasijada kale oo ina walaashay xataa ay commentiga igu soo qortay, gabdho kalena ay soo weydiiyeen inanta commentiga walaashay igu soo qortay kale waxay tiri maxay sameeyeen dadka hooyooyinka ah keligood shaqeeya lacagta kaashka bankiga dhigta. taas waa su-aal aad u fiican weeyaan. haddii aad tahay hooyo ama dhulkii joog, gabdho badan baa iyaguna sidoo kale wadankii meel kasta jooga ama qurbaha jooga igula walaalay ma shaqayn karno, businesskii dadkii ma aamini karno, gurigii waxba kuma gadi karno, caruur baanu haysanaa, maxaan sameynaa? walaalayaalow, haddaad hooyo ilmo yaryar haysata aad tahay, ilmahaaga xooga saar, ilmahaaga korso. adduunku wuu isbedelayaa, macna male. alxamdulillah tomorrow bay korayaan, waad shaqaysan kartaa. haddii aadan guriga ku shaqaysan karin, haddaadan online ku shaqayn karin, haddaadan guriga wax ku gadi karin, oo fursadaaso dhan ay kaa xidhantahay, ilmahaaga korso. laakiin hal mid ha ka tegin, wax kasta oo kusoo gala wax ka dhigo. sababtoo ah tomorrow ilmahaas ama maalinta ay iskuulkaa aadaan ama maalinta aad tiraahdo waa shaqaysan karta, waxa muhiima inaad wax haysatid. ama maalintaa business aad ha ku diyaar ahaado business ku gal ama shaqo ku noqo, at least waxbaad haysataa. marka haddii aadan shaqayn karin, haddii aadan business furan karin, ilmo yarar haysatid, dhibaato ma laha. ilmahaaga wax ka muhiimsan ma jiro. ilaahay giftiga uu ku siiye korso, si fiican u korso, laakiin ha isilaawin. laakiin gool yeelo, dream yeelo, ogow waxaad rabta. yes, waan rabaa gabdhaheena dha inaynu wada shaqaysano, lacagteenu inoo shaqayso. laakiin haddaadan awoodi karin, lacagtaada macno male, bankiga ha kugu jirto. haddaad qurbo joogtid oo kale investment baad samayn kartaa, lacagtaa bankiga kugu jirta. adlis waa lacag ku taala, naftu waxay ogtay weyshataa. so wixii kusoo gala, muhiimadeena waxa waaye wixii kusoo gala wax ka dhigo, bankigaaga dhigo. insha allah bidmillaahi karin, haddii ilaahay raalli ka noqdo, lacagtaas way iska badanaysaa. maanta bankiga $20 hataa ku ridid, sidoo kale ku ridid, meel kasta ku ridid, waad samayn kartaa. alxamdulillah. markaa muhiimana waxaadna ogaataan, qof kastiba time buu leeyahay. maanta markaad hooyato ilmo yarar leedahay iyo gabadha hooyo ilmaheeda teenager yihiin, gabadhaan caruurta lahayn, gabadha hal cunug haysata, gabadha shaqayn karta, gabadha fursad haysata ilmihii inay cidi ka hayso ama business furto ama iyadu shaqayso, isku mid matiidin. qof kastiba wuxuu leeyahay time. so timekaaga wuu ku imanaya. qofkaa kale hays barbardhigin, macno male. waad koraysaa, iyaduba shalay waa lasoo maray. waxaadna ogaataa adduunka ilaahay markuu qofku wax samaynayo waxbuu loo iskareeya. markaad business wadatid, hooyo ilma haysata aad tahay, labadoodiba igwali uma noqon kartid. meel unbaa aad xoogaa yara hawshaadu ka yara gaabanaysa. marka adiga isweydiiya, ma ilmahaagaa dayacaysa, ma businesska ma isku wadi karta? qofku caawiya ma haysata? sidoo kale haddaad walaal business furanaysid ood ilmooley tahay ama nin laho ama halahaan, qof hayar garee kula shaqeeya, qof businesska kaala shaqeeya samayso, qof ku caawiya oo aad lacag siisid. ha isku dayin inaad adigu labadaba samaysatid. haddaynu dumarka Soomaaliyeed dhibaatooyinka waaweyn oo ina haysta, waxay wax walba inaynu inagu samaynayn rabnaa, mana samayn kartid. bini'aadmi baa tahay, qof keligii baa tahay. marka haddii aad dukaan furatid, gabar kale hayar garayso, wiil hayar garay ee shaqaalaysiiso, lacag sii, gelin ha kaa hayo, maalintina ha kaa hayo, ku kormar. adiguna si aad familigaagina waqti u haysatid, businesskaagina waqti u haysatid. laakiin haddaad tiraahdo businesskii baan xoogayga dhan gelinaya, caruurtiiba ama kaa dayacmaysa ama businesskiiba kaa furmay. so it's okay inaynu u baahannahay qof ina caawiya, ay normal tahay. taasi waa ta. haddaad markaa ilmooley tahay, ilmahaagu yaryar yihiin, dhib male. ilmahaaga korso, wixii aad guriga ku samayn kartid ku samay. haddaadan ku samayn karna, wixii kusoo galay wax dhigo. laakiin wax baro, at least haddaad qurbo joogtid. haddii aadan shaqaysan karin, iskuul aad, luuqada baro, wax baro, something baro, because ilmaha kan waa lagaa hayn karaya saacad ama 2 saacadood. daycare baad geyn kartaa, wax kastaad samayn kartaa haddaad guriga ku hayn kartid. marka insha allah bidmillaahi karin, dhib ma laha. yaynan laba qof isbarbardhigin. qofkaas wuxuu samayn karaa, adigu ma samayn kartid baa laga yaaba. timekaagi maaha, waqtigaagi maaha. hadda ma awoodid, hooyo ilmo yarar haysataa tahay, hooyo umul baa tahay, ilmihiibaa beebiya, ilmihiibaad iskuulka geysa, waad kasoo celisa. marka jaaniskaagii hadda ma haysato. laakiin ku mashquulin, $1,000 baa isoo galo, waxaan rabaa 300 inaan safe gareeyo. waa realistic inaynu noqono, wixii macquula inaan sameyno weye. $5 hakaado, 10 ha ahaato, 20 ha noqoto, 30 noqoto, wixii aad awoodid ood dhigi kartid dhig. qof kale waxa uu safe gareynayo waxba kaama gelin. adigu wixii aad awoodid sameey. wax kasta way bataan, wax kasta aad meel ku datay, 1 iyo 2 marka la isku daro 3 bay noqotaa. everything maanta $1 hadaa dhigto, tomorrow midna ku darto 2 buu noqonaya, saadnaba mid ku dartay 3 buu noqon, 4 5 wixii ugu badanaya. marnaba wax kama soo go'ayaan, wax lee ku dareysaa. marka insha allah bidmillaahi karin, macna male. dahabkeenu waa gadan karnaa, waad gadan kartaa. marka adiga wixii kuu shaqaynaya, dahab noqotaya, kaash noqotaya. laakiin muhiim walaalo, xoogaa at least kaasha meel dhigta. waxay soo weydiisay mar hore
akoonada masheerba gabadh walaal oo Hargeysa joogta ilaa khayr siiyo Xamda waxay ii soo sheegtay si fiican ay ku soo faasishay in uu jiro Hargeysa oo kale waqooyi Somtel bangi la yiraahdo Kayd oo aad furanaysid oo tiri waqti go'an bay leedahay wiil kale walaalna mar hore uu sheegay waliba intan aad ma sha Allah igu soo faahfaahisay qofkii rabana information ka dhan soo siinaya waxay ku tiri bangiga 3 bilood bil 6 bilood intaas ayaad aanad waxba kala bixi karin wax la ku ridi kartaa 6 bilood marka la gaaro lacagtaad ku ridi wad kala bixi kartaa sanad hadaad xidid wad kala bixi kartaa 5 kala bixi kartaa hormuudka xamarna sidoo kale iyo gobolada dhexna sida wali ma hubo information waa la igu maqan yahay iyadana bangiga keeda inay jiraan ban jeclay intaas igu tiri laakiin inan ayaa igu tiri xamar joogta information kan soo ogaanay hadaad gabdhaha xamar jooga ama gobolada dhexe joogona sidee idinkuna bangiga ma furan kartaan walaalayaal meel kasta aad joogto bangi waad ka furan kartaa ina walaashay waxay soo weydiinaysaa Egypt joogta I think meel kasta aad joogtay hadaad sharci haysatid waliba aad qurba ka tagtay inaad bangi furan kartid ama Qaahiro joog ama Dubai joog ama Baalka joog asloona sharci haysatid aad legal tahay bangi waad furan kartaa ma garanayo wadan kasta systemkiisa laakiin hadaad awoodid bangi furo lacagtaada maalinba in yar ku rido because lacagta banki ku jirta inta badan waa safe guriga kale safe ma wax kasta ku dhici kara waliba hadaynu qurba joog ama qurba nacas aad joogtid marka insha Allah bidmillahi karin information ka waxaad rabtaa way soo weydiin kartaa inkastoo aan wadanka joogin laakiin insha Allah bidmillahi karin dadkana sharafta wadanka jooga ayaa information na soo siin kara marka insha Allah bidmillahi karin banki furo maalin ba shilin ku rid 20 ku rid 20 shilin ku rid 10 ku rid 100 ku rid inta doontaad ku ridi kartaa bangiyada tan kaydka ahna aad ayaa runtii u fiican yihiin buu uga helay maadaama qofkaasi wuxuu doono uu ku ridan karayo oo aanu ka daba tagayn bil 2 bilood 3 bilood intay doonto ha noqoto alxamdulillah marka insha Allah bidmillahi karin hadii Ilaahay raali ka noqdo waqtigeena maalintu inoo gaaro ayaynu sameeynaa no two people laba qof oo isku marxalada ku jira ma jiraan inaga dhan marxaladeena income keena saving keena family aynu haysano shaqadeena income keena soo kala waxa dhan way kala meeshaynu joogno waxa dhan way kala duwantiin iyo sidaynu lacagta u naqaano ama aynu uga fikirno soo wax kasta way kala duwan yihiin qofna qof lama mid ah adiga wixii ku shaqeeya hadii aad aragto waxa aad sameynayso inaanu ku shaqeynan insha Allah bidmillahi karim marka wax ka bedel insha Allah bidmillahi karim fadlan video ka leegtayno saara subscribe and share kare intaynu video kale kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh